maxaa ku dhacay kooxda Liverpool kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League xasuuq 3 gool oo dasho loo saaray markii ay wajaheen kooxda hogaamiye Pep Guardiola sidoo dhac kulankaasi maxay tahay ciyaartooyda garoon ku dhaxoonay tufaaxa ka tirsanaa Manchester City ayaa muujinayeen kuwa ugu cadcad Arsenal kula dagaalami kara hanashada horyaalka kadib markii xasuuqeen kooxda Liverpool kulanka ayaa ahaa mid dhinac u janjeera bilowgiiba iyo Liverpool kubadda ku wareejisay inta badan haysata qaybaha hore 12 daqiiqo golayaha kooxda iyo qalad ku galay Jeremy Doku gudaha xirada ganaaxa arintan yaraa ismuran badan golayaha reer Georgia ee iska caabiyay qalad markii uu qabtay rigoor uu tuuray Haaland si kastaba wuxuu arkay markii daqiiqadii 30aad uu madax ka eliyay goolkii koowaad isoo ka dulbooday Ibrahim Konate Van Dijk ayaa u maleeyay inuu barbareeyay dhamaadka qaybtii hore balse goolkiisa waa la diiday maadaama Andy Robertson offside ahaa markaan loo arkay inuu carqaladeeyay Donnarumma inkastoo golayaha City uu la aragtay furan isla halkii City ay heshay goolka labaad Nico Gonzalez ee kubad fog ka soo tuuray geeska taa ku dhacday Van Dijk korintiisan shabaqa galin Liverpool waxay si xooggan ku soo gashay qaybta labaad balse Doku ayaa dhameystiray goolka saddexaad taa uu gabi ahaan bedeshay rajadii Rediska Liverpool ayaa isku dayday inay gool raadiso hase fursado waaweyn ayaa iska khasaariyeen iyadoo City ay samarnaba halis galin natiijada 3 gool oo kulan ku soo dhamaaday City ayaa soo gashay kaalinta labaad Bielka iyagoo leh 22 dhibcood halka Liverpool hoos ugu dhacday booska 8aad Cameroonka ayaa qabanayay Foden iyo Haaland oo garoonka tufaax ku dhaxoonaya taa loo arkay Jerjes inay kala direen kooxda kubadda cagta Liverpool kadib kulanka taageerayaasha ayaa farta ku feeqay cidda leh mas'uuliyadda guuldarada inkastoo guud ahaan si liidata ciyaarta ku ciyaareen taageerayaasha Liverpool ayaa si gaar ah u weeraray Ibrahim Konate iyagoo ku eedeeyay qalad joogto ah niyad jab iyo inuusan u muuqan mid diiradda saaray kooxda tan waxay ka imaanaysaa wararka sheegay in difaaca Faransiiska waxaa dambe doonay ku biirida kooxda Madrid qaar ka mid ah faalooyinka taageerayaasha waxay ahayd Konate Janay hal ciyaariyo maskaxdiisa waxay ku jirtaa Madrid waa inuu baxaa Janay qof kasta ay kubadda ku dhiibaa go'aan qaadashadiisu waa masiibo lacag ma u aroorinaa si aan ugu dirno Madrid Janay Gomez ayaa xilaareedkan oo dhameystiri kara taageero ayaa soo qoray hal qalad uu sameeyo waxaad ogtahay 10 kale inay imaanayaan waa mas'uuliyad daro oo joogto ah qof kale ayaa soo qoray haddii Madrid bilaash ku qaadato iyaga ka qoomamayn doona taageero kale ayaa soo qoray taageerayaasha in qaabka ugu maadeystay aadna kaga carooday Ibrahim Konate taay saareen mas'uuliyaddii guuldarada kooxda